waqtigu waa kaliil hagi dayreen markaas oo biyaha dayreed dhibicdii ugu horeysay dhulka qaar ku hortay waxa ay degsimadu degan tahay batal ay hogashi guga ugu dambeysay ka degeen halkaas oo gooshiyaal badan oo xagaaga ay ku soo biyo cabeen waa fiid hore barkaas oo inta badan xumaysiyaasha xoolaha Soomaalidu dhaqato la soo xareeyay waxaana dhul gabana uu ka soo hilaacay dhinaca bari wax yar kadib waxa uu baasha ku soo dhuftay halkii ay degsimadu deganeed waxaana markii uu waagu dilaacay isu yimi inta badnayd odayaashii deegaanka kuwaas oo isbariidin kadib go'aan ku gaaray in sahan loo diro roobka halkii uu xalay ka daay waxaana la qorsheeyay cidii sahanka aadi lahayd iyagoo judhiiba u dhaqaaqay dhinacii roobka xalay ka hilaacayay qiyaastii markii ay socdeen hal minqaad waxa ay galeen meel uu qabtay roob yar oo tumaya waxaana ay wax yar kadib galeen roob qoor ku dadaba kaas oo qaboojiyay dhulka qaarkiis yar kadib markii ay hore u dhaqaqameenna waxa ay galeen meel uu qabtay roob biyo qaada kaas oo inta badan kubaha waaweyn biyaha dibadda ka dhigay waa dhul ugbaado oo maalmo kadib ay xooluhu ka guran doonaan jajabo intaas kadib waxa ay go'aan ku gaareen inay tahay halkani meeshii ay degsimada u soo rari lahaayeen waxaana ay gabalgaabkii u soo caraabeen dhinacii degsimadu deganeed iyadoo fiidkii isugu qaylo wacday in reerku berri yahay geedii ugu dambeyntiina waxay subaxdii caynka u jiideen awrtii iyagoo barqa dheer kadibna ku dhuucsiibay halkii ay hogashu ku hortay